فرعون waxa uu xaakim ka ahaa dalka Masar ahdigii Nabiyullaahi Muusa calayhi salaam. Haddaba Fircawn ayaa wuxuu dadka ku qasbi jiray inay aaminaan inuu isagu Ilaah u yahay. Gabagabadii noloshii Fircawn, Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu Nabiyullaahi Muusa u kala jeexay oo u baneeyay isaga iyo kooxdiisa badda. balse Fircawn ayaa markii uu badda soo galay si fool xun ugu dhintay badda dhexdeeda, iyadoo la sheego inuu jasadkiisa Ilaahay subxaanahu wa tacaala badbaadiyay si ay dadku ugu cibro qaataan. Tancredo Neves, madaxweynihii Brazil, waqtigii uu loolanka ugu jiray ololaha doorashooyinka dalka Brazil, ayaa waxa uu yidhi haddii uu xisbigaagu helo 500 oo kun oo cod, xataa Ilaahay igama hor istaagayo inuu madaxweyne noqdo. Waa uu helay 500 kun oo cod, balse guushiisii kadib dunida kuma sii raaxaysan. Waxa si kadis ugu soo booday xanuun, qalliino badan ayuu maray, si kasta waa la yidhi, balse waxba laga qaban waayay, halkiibuuna ku dhintay. Cazuza waxa uu ahaa abwaan, fannaan, kuna caan ahaa khaniisnimo. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa isaga iyo kooxdiisu waxa ay heeso ku qaadiyeen meel xaflad ah. isagoo xafladii jooga ayaa waxa uu la soo baxay sigaarkii markii uu cabay ayuu xagga sare ee hawada u afuufay, kadibna yidhi ilaahayow intaasi adiga ayaan ku hibeeyay iska qaado. wiilkii iyadoo da'diisu marayso 32 sano ayaa waxa uu geeriyooday cudurka AIDS-ka, wuxuuna u dhintay qaab aad u foolxun. ninkii sameeyay markabkii weynaa ee Titanic, Thomas Andrews, nin wariye ah ayaa weydiiyey awoodda iyo ammaanka markabkaasi. waxa uu qaab lahjad adag ugu jawaabay, حتى إلهي ما أودي كره إنه كدون سيو أم ببربريو مركب كاسي. وحن فيليا إن هذا ود رسنتين قصة مركب كاسي ومدعان وحاو قدوم قلبني ما 4 طبعاً كبشي أبريل كون سجال بقول لبقية طبعاً كي يسقوا وجه حاجة ينيو دلك مريكانك. هذا مركب كاسي أيا وحصارنا دد قاري يلا بكون لا بقول 4 تنقف. waxa uu markabkaasi ku dhacay buur ku taalay badda gudaheeda. waxa ayna noqotay dhacdadaasi tii ugu cuslayd ee ka dhacda badda gudaheeda waqtigaasi, iyadoo halkaasi ku naf waayeen dad gaadhaya 1500 oo qof. Marilyn Monroe iyadoo u diyaar garoobaysa xaflad ay qaban rabtay ayaa waxa uu yimid nin hawlwadeennada goobtaasi ka mid ah, wuxuuna si kaftana ugu yidhi ilaahay ayaa ii kaa soo diray. kadibna waxay ugu jawaabtay ilaahay waxba ugama baahni, subxaanallaahi alkhaaliq. usbuucun kadib waxay ku geeriyootay gurigeeda. Bon Scott waxa uu ahaa fannaan, isagoo qaadaya hees ka mid ah heesihiisa 1969. isagoo heesaya ayaa waxa uu yidhi hay joojinin ilaahayow, waxa aan doonayaa inaan galo meesha ugu hooseysa, waxa aan doonayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inaan naarta u galo. haddaba sanadu markay ahayd 1980 ayaa Bon waxa la helay isagoo meyd ah. Christine Hawet waxa ay ahayd wariyad ka soo jeeda dalka Jamaica. waxa ay tiri quraanka oo ka kooban hadalka Ilaahay waa kitaabka ugu xun abid. 2006 ayaa waxa la arkay iyadoo ku dhex gubatay gaadhigeeda. subxaanallaahi alkhaaliq. qisada caanka ah ee Kisra iyo Qaysar, Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa labadoodaba waxa uu u qoray waraaq fariin ah oo u sheegaysa inay diinta Islaamka qaataan. fariintii markii ay soo gaadhay ayaa labadiiba waxa ay diideen diinta Islaamka inay qaataan, balse Qaysar fariinta Nabiga sallallahu alayhi wasallam waa uu maamuusay, wax xadgudub ahna uma geysan, mulkigiisina Ilaahay wuxuu ka dhigay mid aan burburin. balse Kisra ayaa ku xadgudbay fariintii uu Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam uu soo diray, waa uu jarjaray waraaqdii. intaasi waxa uu ku darsaday waliba in uu aflagaadeeyo Nabiyullaahi Maxamed sallallahu alayhi wasallam. wax yar kadib Ilaahay wuu dilay, wuuna baabi'iyay guud ahaanba maamulkiisii. qoomkii reer Thamuud waa qoom uu Ilaahay u soo diray Nabi Saalix ah, isla markaana fariintiisu ay ahayd inay caabudaan Ilaahay oo kaliya, kana dheeraadaan caabudidda ay caabudayaan sanamyada. waa ay rumeeyeen ay soo dhaweeyeen Nabiyullaahi Saalix alayhi salaam, balse wax yar kadib waa ay ku gacan saydheen, waxayna gowraceen hashii Ilaahay ugu soo diray inay aayad amba waano ay u noqoto. waxayna ugu hanjabeen Nabiyullaahi Saalix alayhi salaam in haddii uu wax tarayo uu keeno cadaab. wuxuuna Ilaahay subxaanahu wa tacaala Nabiyullaahi Saalix u sheegay inuu 3 maalmood ku soo dejin doono cadaab, una sheego dadkii isaga rumeeyay inay raacaan si ay uga badbaadaan ciqaabta xagga Alle ka soo socota. intii rumaysay waa ay raaceen, intii kale ku gacan saydhay ee beenisayna waa ay diideen inay raacaan. 3 maalmood kadib waxaa xagga sare uga timtay qaylo iyo dhulkii oo la gariiray, taasi oo keentay inay guud ahaanba reer Thamuud baaba'aan. ilaahow waxaan ka magan galay cadhadaada, ilaahayow waxaanu ka magan gallay inaan ku dhimanno cadhadaada. ilaahayow hana dilin adigoona naga raalli ahayn,
gabagabadii iyo gunaanadkii baynu soo gaadhnay. aad baad ugu mahadsantihiin daawashadiinna. fadlan ha moogaanina in aad sii sheer garaysaan ood la wadaagtaan asxaabtiinna idinku xidhan balaha bulshada sida Facebook, WhatsApp iyo wixii la mid ah. hana hilmaamina inaad subscribe saartaan channelka dadweynaha si aad ugu taxanaataan barnaamijyada ka baxa channelka. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.